Khubaro siyaasadda falanqeysa iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Mareykanka ayaa sheegay inay isu eg yihiin wixii 46 sano ka hor ka dhacay Saigon iyo qabsashada Taliban ee Kaabul. Sanadii 1975tii, sawir-qaade Helbert Van Ass ayaa baahiyay muuqaal dad ku xoomay diyaarad helikabtar ah taasoo dul fadhida dabaq ku yaala magaalada Saigon. Xilligaa waxaa soo afjarmay dagaalkii Vietnam. Haddaba maxaa ka dhacay Saigon? Wuxuu ahaa dagaal daba dheeraaday oo socday ku dhawaad 20 sano, isla markaana ay si weyn ugu kala qaybsameen shacabkii Mareykanka. Dagaalkii Vietnam ayaa u dhaxeeyay xukuumaddii Shuuciga ahayd ee waqooyiga dalkaas iyo maamulka jiray koonfurta kaasoo taageerayay Mareykanka. 30kii Abriil 1975tii ayaa magaalada dalkaas ugu weyn isla markaana ahayd caasimaddii koonfurta waxaa dagaal kula wareegay xoogagii Shuuciga ahaa ee waqooyiga, kuwaas oo loo yaqaanay Viet Cong. Mareykanka ayaa ciidamadiisa kala baxay koonfurta Vietnam sanadii 1973. 2 sano kadib waxaa gacantii waqooyiga gashay Saigon oo markii dambe loo bixiyay Ho Chi Minh oo loogu magac daray hogaamiyihii waqooyiga ee xilligaas. Colaadii Vietnam ayaa ku soo beegantay xilli halkii ugu sarreeyay oo maraya dagaalkii qaboobaa, waxaana labada dhinac kala taageerayay Midowgii Soviet iyo Mareykanka. Xukuumaddii Washington ayaa dagaalka uga qayb qaadanaysay 100,000 oo askari. Si la mid ah Kaabul, Saigon ayaa si degdeg ah oo Mareykanka filayay ugu gacan gashay xoogagii waqooyiga Vietnam. Mareykanka ayaa xilligaas Saigon ka daadgureeyay dad ka badan 7,000 oo ruux, kuwaas oo isugu jira muwaadiniintiisa, dad Vietnamese ah oo taageerayay howlgalkii Mareykanka iyo ajaanib kale, wuxuuna safaaradiisa uga daadgureeyay diyaarad helikabtar ah. Dadka qaar ayaa u arkay qabsashada Saigon wajigabax uu Mareykanka la kulmay saaxadda siyaasadda caalamka. Sanadihii xigay waxaa aad u batay shacabkii Mareykanka ahaa kuwaasoo diidanaa in ciidamadooda ay ka dagaalamaan dibadda dalkooda. Dabayaaqadii dagaalkii Vietnam, dad badan oo Mareykan ayaa si weyn u dhaliilay dhaqaalihii badnaa ee Washington ku bixisay colaadaas iyo weliba muwaadiniintoodii, kuwaasoo ka badnaa 58,000 qof, kuwaasoo ku naf waayay colaadii Vietnam. Xildhibaano badan oo labada aqal ee Mareykanka ka tirsan ayaa isbarbardhig ku sameeyay Saigon iyo Kaabul. Elias Stefanik oo ah gudoomiyaha aqalka wakiilada u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee Jamhuuriga ayaa Twitterkeeda ku qortay, "Tani waa Saigon-tii Joe Biden, waa gooldarro foolxun oo Mareykanka uusan hilmaami doonin weligii." Bishii la soo dhaafay, General Mark Milley oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay isbarbardhigga labada dhinac, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay, "Waan khaldami karaa, balse Taliban ma ahan ciidamadii waqooyiga Vietnam, xaaladuna la mid ma ahan tii waagaas, balse waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya labada dhinac. Saigon waxaa la qabsaday 2 sano kadib markii ay ciidamada Mareykanka ka baxeen weliba si buuxda Vietnam, halka Taliban ay Kaabul soo galeen xilli uu Mareykanka si buuxda uga bixin Afghanistan." Haddaba waxaa jira su'aalo badan oo la iska weydiinaya arrintan, taasoo ah waxa ay u dhimi karto sumcadda siyaasadda madaxweynaha cusub ee Joe Biden, kaasoo hirgeliyay qorshaha Mareykanka uu uga baxayo waddanka Afghanistan.